بسم الله الرحمن الرحيم. صقر محل قدوة سيدنا حق يستاق والله هذا يقول هذا محل قدوة هذا يقول هذا يقول حق درا فيسبوك أنا وحده لك شيخ ما يواكل جستاي سك سولوا سوس جس halkan soo istaaga duulad safta hadii halo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. halkan galabtay waxaan ka ambabax ka ahay saad u jeedaanba aan ku sugnahay magaalada Nashville ee carigaasi Tennessee ee dalka Mareykanka halkan waxaad ka aragtaan akhyaartii suldaanadii ugaasyadii aqoonyaankii siyaasiga iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed qaybaheedii kala duwanaa Soomaali Maryooley waa maskiinka anaguna halkan waxaan kula kulannay ninka aad maqasheen magaciisa oo la yiraahdo Dabcasar waa boqorka Soomaaliyeed waa ninka beesha la yiraahdo haya marka Soomaali Maryooley waa noogu yimid baanu halkan ku soo dhaweynay okay barnaamijkeena baan boori garaamo badan baanu ka maqalay oo nalooga sheegaa kuwa khaldan iyo kuwa saxan iyo kuwa walba laakiin sidii la igu sheegay si aan ahayn buu uga duwan yahay waa nin Soomaaliyeed oo dadka aad u soo dhaweeyo oo soo dhaweey fiican oo waxyaalaha ama hawlaha ama boori garaamada uu wada ay yihiin kuwa aad u fiican oo lagu higsado oo wax lagu qabsado oo tala fiican baxna wuu bixiyaa ninka la yaa Dabcasar adeer talooyinka uu ka dheer haduu saliseetugi baga faa'iideysatay Tennessee waa ka xumahay markuu baxayay baan la kulmay laakiin shalay iyo hadaan joogi lahaa maalmihii ka horeeyay aad buu noola tala bixin lahaa laakiin asagoo safar oo gaarigiisa calanku u taagan yahay dhaqaaqa haya ayaanu la kulanay khiyaar badan oo meesha waxaan ku leeyahay Soomaaliya waa isku baabaaday waana baabaaday aan ku taliyo ii talin mays anta tashan mayno aan kala tagno kala tagi mayno wax dadban isku dadban kala dadban wada dadban baa jira ma garatay oday dadban dastuur dadban iyo madaxweyne dadban iyo xildhibaan dadban balaayo wada dadban waxaan ku leeyahay nin waxa tahay raggii hore soo gaaray taariikhdii Sayyid Maxamed iyo Axmed Guray iyo raggii horena haya amxaara iyo san ceerinka u cusin jirnayna taariikhdeeda haya waxaan keenay maxaa Soomaali kula talinaysaa si guud shan Soomaali waxa keenay raggii aad ka hadlayso leeyahay ceerin bay wax xunteen jireen ama dagaalami jiray ama Soomaali magaceeda ilaalin jiray way ka hooseeyeen cagahaagay ku jiraa Soomaali waxay ku dhacday ceelka haashu markay ku dhacdaan rag baa ka soo saari jiray ragaan waxba soo saari karin baa dul jooga hashi dul jooga hashuna ceelkay ku baqtiyaysaa laakiin awal rag ka soo saaraa jiray waa gartay haye Soomaali marka waxa weeye meel waxay ku dhacday ilaahay inuu ka soo saaro maahan cid ka soo saaraysa ma jiro marka ragii waa joogaan chance lama siin ragga chance lama siin waqtigoodina ma joogaan marka calaqaate daba dhilifa yaa dadkii horboodii leedahay hoggaanka naga xun waxaa jira wadanka Soomaaliya sidaynu naqaanay waxaa dadku noolaa iyadoo aan dawladu jirin oo gumaysiga diidi jireen gumaysiga diida oo la dagaalama oo meel saara oo laga cabsado baynu arki jirnay magaratay oo dawlad shisheeye iyo qurbe iyo beesha caalamka aan wax ka sugin caanahooda iyo geelooda iyo arigooda dhaqda adduunyada Afrika inaga ugu yareen dawlad lagu weeraro diyaarado oo la garaaco 12 sano inaga jirnay maadaama la yiri war kuwaan soo socda dunida ay qabsan doonaane aynu ka hortagna baa la yiri magaratay adeer gacal iyo laftiga oo raggii hore ka soo jeedaayay bal waxaan ku yiri bal Sayyid Maxamed taariikhdiisa wax ka sheeg Sayyid Maxamed taariikhdiisa haddii aan wax kaaga sheego Sayyid Maxamed taariikhdiisa waxaan ku hayaa marka uu soo degay inuu berbere ka soo degay haye muxuu yahay magaalada Hargeysa oo dhalinyaro badan ku xareysan tahay oo loo hayo in la gaaleeyo haye Sayyid Maxamed Cabdillah Xasan wixii markuu arkay buu ka dhidhiyo ka xumaaday waa kii daraawiishta abuuray waa kii rag sameeyay waa kii la dagaalamay haye Soomaalidan garanin wuxuu ahaa cadawga gaaladu ahaa haye islaamka u dagaalamana wuu ahaa haye laakiin asagu ninna waa guulaystay laakiin arrinta uu lahaa uu ku guulaystay asagu waxaa la sheegaa sidii anigu maalin dhaweeto aan u lahaa isdhaxlay marka maalin dhaweeto waxaan lahaa laftigaygu
oo ku dhawaaqay adina ku soo galayso hatay cabar ma qaysanaya maalin dhawayto waxaan markaan ciil Soomaali iga qabtay say ii lugoynayaan iyo miskiinka loo lugoynayaan iyo saan u waaninayo iyo taariikhdooda wax xasuusinayo ayaan waxaan xasuusiyay gabay uu sayidku uu yiri markii uu ay ciirsadeen alla uu nin gobo guni rifaysan ahaye alla uu nin goba oo guni rifaysan ahaye sayid maxamed baa laga yahay yiri marka guni rifaysan adna waa dhiido bal gabta uu yahay maxay ahayd mahaliyay geesi abu haayo gumaysidiid oo alla iyo rasuulkiisa oo gaansamay muxuu ahaa bal isha gabta wuxuu ahaa nin geesiya wuxuu ahaa nin deeqsiya wuxuu ahaa nin macnaha codkara wuxuu ahaa nin gabyaaya wuxuu ahaa nin saadaashiisu fara badan tahay hogaamiye caalamiya buu ahaa Soomaalian garanin sayid maxamed cabdillah xasan wuxuu ahaa nimaynaan hadda un hawshiisa ku soo koobi karin istaagaan u ahaa laakiin wuxuu ahaa laacibka Afrika wuxuuna ahaa nin islaam ah oo diinta islaamka dalalka reer Yurub sida Ingiriiska iyo jaamacadahooda Oxford iyo meelaha la midka waa lagu dhigaa taariikhdiisii gabayadiisii iyo suugaantiisina waxa lagu fasirayay halgankiisii dheeraa luqadda Ingiriiska iyo luqadaha kala duwan ee reer Yurub meesha Soomaaliya ay ka yani ay taariikhdiisii tirtireen oo xataa kilinka xooga lagu haysto hoolka sayid maxamed meel gabdhaha Soomaaliya kalaab loo dhisay loo bixiyay yani kalaabkii waxa loo bixiyay hoolka sayid maxamed درجح اوكي واد مقشي سلا aynu waxa la yiri nin dhintay kabihiisa ka dugroon baa la yiri moogta ninku marka uu dhinto waa wax walba lagu sameeyaa meeshii noloshiisa laakiin jamaaga weynaa sayid maxamed cabdillah xasan Soomaali ka dhashay ayaa waxa inta taalaysa adar magacaagiina neesta horta sheeg neesta sheeg aniga waxa la yiraahdaa la yiraahdaa كالي ما إلي ما تكبر قيسها ما يكبر إلي شيء هو قبطو شيء كان هيا سوما نقرني هذا ما قاعد يشك ما قاعد يشك أي أنا أقول عبد الله ولا يدا أي ما قال أصلا وين تقارنا بابوك ما عدنا ما قال أنا قاعد صومالي محل ذي تاريخ ذي شكل صومالي وين كلا فرد أي شنت أدوم وكلا فرد أي رم صومالي كوي كانوا أنا صومالي قبرك ورم قبري قبرك ورم يا ماذا ورمه اي ها والحاج اوكي غير ديسو نورت وان دردارمينا بوبا ودرينا كل قصتي وانا جعلي ودردارمينا اي Soomaali taagantay waa safar ma u jeedaa yani ina socotaa rabtaa waxoogaa yar dardaaran Soomaali labada boqol ilaha gooy ay gabraa sheegis ay hadda arka aniga waxa weey waa ay dhax gilaa sidii ma garanaysaa ay marka baxdin soo baxdinta marka soo qof marka baxdin ka soo baxo usma la garin jiray soo ma garanaysaa waa dhax gilaa gabraa hadda arka كور سيد محمد كور سيد محمد عبد الله حسن الله بركيه الله ونحريسته halgamaabo laakiin halgankiisa waxa hal bacad lagu lis ay Tuubiyaan baa walaaqay wadanka ay Soomaali garan madaxtooyada Soomaaliya ku wajan ay Soomaali garan Soomaaliya waxay ahayd ba horta waxa way hadda qabiilku waa ka dhintay qurunka ay laakiin shisheeya kala qoqobaya صح ma garanaysaa Tuubiyaan iyo Kenyaati iyo maxaan ku dhadaayay Eritrean iyo Balaayo iyo Soomaaliya saa kala qoqobay صح inta joogta iyo inta soo socota midna waxa ka qoon mayso صح ilaahay daa'ira inuu keeno ma ogi حد هذا نستغنوا كما كرنا waa hadii aan المدونو hadii aan qalbigan uu halya هاي oo aan u mudugno weeyaan هاي marka ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaaliya asaga maartay asaga un baa maartay daa'iraha si صح امين Soomaaliya hal noolaato Soomaaliya shanta Soomaaliyeedna isku imaadaan malayaan هلا اسرع ma garanaysa Ethiopian Oromo Egypt hadu Oromo uu nin adag yahay Ethiopian waa hore ka taqalusala هذا دغالات Oromo 60 milyan waxba hayn ما دغالدي waa bilowday maanta waa socdaan aad bay u socdaan dagaaladii waa socdaan hadda jidta la isku haya marka awal mudaharaad bay wadeen hadda waxay galeen juqday galeen dagaalka xabadii waa dhacaysa saacadaas boqorka shanta Soomaaliyeed fariin iga gaarsi odayaasha oo hay joog صح iyo Soomaali weyn midooba meel ka soo tagto Houston Texas Dallas Texas Colorado meel ka soo tagto midooba Soomaalida ma garanaysa Soomaaliya la hadla ma garanaysa kale Soomaaliya la hadla
marka xaaji qabow ka gabo insha Allah taala safar salaama kuleeyahay هذا القعدي برف كعر qabowga insha Allah taala برف والله قعدت waxaan ku yiri gabre هي dadku gabre waa kuwa gabre boqolaal la gooyo Itoobiyaan moog هي raganimadiisa iyo Itoobiyaanimadiisa la soo baxay inaga meesha is dhignay هي inaga waa meesha is dhignay inagu ma weyne kuwa gabre oo kala waxa weeye muruqeena iyo maalkeena iyo hantideenna iyo dadkeenu haday mudoobaan ayagoo inta ka litay gumaysan الله اكبر الله اكبر الله اكبر يس دلي الله اكبر marka lagama hadlo baan ku qof dhiciif lama yiraahdo saas oo aan jirin ina kuwani mana iyaga isaga u dhigmay saraajo si walba meeye هي kuwa isaga cunay meeye 77 meeye ragii laqay هل استقل الله اكبر madaxeena iyo muruqeena iyo maalkeenu markay mudoobaan ها cid ina hor istaagi ka dhama jiro الله اكبر تكبير ما شاء الله ما شاء الله هلا هدي واكبر حوق الصومالي قرباه برف دحنته خير بهذه الرجاليه السلام عليكم ورحمه الله قورسده هلا قورسده سلسيتونا على المامين هدي لك بهي السلام خير بهذه الرجاليه السلام عليكم نصفي ويا خيار شرفت السلام عليكم خير بهذه الرجاليه السلام عليكم kaas waa miskiinka alle walaalkiin Cabdiraxmaan bin Cabdalla bin Xaaji oo ka boqolaya ama ka carraabaya magaaladaasi Nashville ee gobolkaasi Tennessee arrin Mareykanka waxaan idin rajaynayaa nabadgelyo bashbash baraare iyo barwaaqo الله waxaan ka barayaa inuu Itoobiya iyo Kenya cadawgeena uu jabiyo ilaahay waxaan ka barayaa cadawga Soomaaliya inuu jabiyo ilaahay waxaan ka barayaa cadawga Soomaaliya inuu jabiyo Allah waxaan ka barayaa cadawga Soomaaliya cadaan iyo madow inuu jabiyo Allah waxaan ka barayaa cadawga Soomaaliya cadaan iyo madow inuu jabiyo ya Allah ya Rahmaan cadawga Soomaaliya jabi ya Allah ya Rahmaan ya Aziz ya Jabbar cadawga Soomaaliya jabi ya Allah Soomaaliya miday ya Allah qalbigooda sukan ya Rabb إله سكن إله ولا له إله يو بروقة الدنيا مدى آخر بس إله أود يحوق من مصي إله يو قال تفرارق يبقى قصر إله مدح غير قبته أوكل إله يو على سي إله يو مارت عيد حوق الأودس إله يو قال إيش كذا كعلي إله يو ولا له إله دينته معان كذا وشرفت النسي إله يو مالي أولادي النعمة يبروقة بس سي إله عافمات سي إله تربى تونا على إله كي شغل سي إله كي دين قبل كبله إله ناقف يعني السي أرجع لي هذا إله كسي ناقف يعني الله كسي إله ناقف يعني سيدنا يرد إله قبل في عسير دراي كدماي إله كربك قاد الصومالي إله سلعة يسحر تكسر إله يا أدرك علي السلام عليكم ورحمة الله كاسوا مسكين كله إذن الله مسكين كهذا إذن الله خير بان درجني أشرف يوناقي بان درجني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله